mudaharaad ka dhacay degmada Dhahar ee xarunta gobolka Highland maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Juun ee 2010 ayaa waxaa lagu taageerayay jiritaanka iyo waliba midnimada Soomaaliyeed iyadoo halkaasna looga hor yimid maamulka Somaliland. Mudaharaadkan ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaan kun oo qof oo ay ka mid yihiin odayaal dhaqameedka iyo waxgaradka gobolka, dhalinyarada, ururada haweenka iyo waliba culimada diinka. halka aad naga daawanaysaan ama aad waliba naga dhageysanaysaanna waa Somali Public Radio SPR.FM. ayaheenna iyo arrimaha bulshada halkan waxaa fadhiya odayaashii cuqaashii iyo waxgaradkii beesha ama gobolka waxa weeye waxaynu ka tashanayna qof walba aayihiisa ayuu ka hadlayaa. waxa weeye marka ugu horeeya waxaan ku soo dhawaynayaa odayaasha waxa weeye dadkan waxa weeye aayahooda inay ka tashadaan in la isla jiirana ma baahan haddaan nahay dadka ku nool degmada Dhahar. halkan waxaan ku soo dhawaynayaa odayaasha nabaddoon Maxamed Cali بسم الله الرحمن الرحيم. لما هو سلام يا برشوين الصوماليين اسمتوا من الصومالي معنا dadkuna ma ay fahmin baan u wadaa maamuladu waa maamulo la samaystay oo samaysteen deegaanada annagu Soomaali baan soo dhaweynaa dawlad Soomaaliyeed baan soo dhaweynaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ma aqbalayno annagu dawlad Soomaaliyeed wax ka sokeeyo ma aqbalayno Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato haddii dawlad Soomaaliyeed la waayo heer waliba saa dawlad iswa gurigiisa iyo dalkiisa iyo ciidiisa iyo aayihiisa nin waliba saa ka taliyo saa dawladka dalkana ma dawladka inta dawlad Soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaynaa in dawlad Soomaaliyeed cadaalada oo diintayna ku xukunta in ilaahay nasiya ilaahay ka baryaynaa amiin dhahaya amiin amiin ilaahay dawlad Soomaaliyeed cadaalada ha noo dhaliyo amiin dhahaya waxaan ilaahay ka baryayaa in caalan Soomaaliyeed la helo caalan Soomaaliyeed
أنا صالي سنة صحيح عين أنا سأبكو تمايسي قدي قدا